qaadkii ayaa isbuuca soo socda la fasaxaya. Uhuru Kenyatta ayaa la heshiiyay. Khiyaano qaran ayaa lagu tilmaamay waxa maanta uu Rooble mar kale sameeyay. Sheergareeya duur wanaagsan saaxiibada galwareed. Warbixinteena duhurnimo ee maanta waxaan ku soo koobaynaa heshiis qarsoodi ah oo uu markaa Rooble la galay Uhuru Kenyatta. Taleefanka ayaa saakay labadooda ay ku wada hadleen qaadka oo la fasaxayo, dhulka naga maqan oo halis galay, balad xaawo oo loo cabsanayo, iyo Soomaaliya oo loo jibiyay Kenya. balse marka hore inta aanan faahfaahinin warbixintan sheergareeya oo saaxiibadiina la wadaaga. ogeysiis معهدka barashada quraanka kariimka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah ee Al Ihsan Qur'an Online fursad dahabi ah ayuu hayaa waalidiinta iyo sidoo kale ubadka la doonayo in iyagoo gurigooda jooga quraanka la baro. haddaba si aad fursad uga faa'iideysataan kala xiriira nambarada shaashada idinkaga muuqda. waa hagaag aan ku bilownay warbixinteena galwareed. waxaa xog laga helay mas'uuliyiin ka mid ah xukuumadda ay sheegaysaa in saakay ay taleefanka ku wada hadleen Rooble iyo Uhuru Kenyatta, iyadoo laga wada hadlay arrimo quseeya labada dal, gaar ahaan Soomaaliya ku ah jab weyn sida ay qabaan dad badan oo farmaajo taageersan. Rooble ayaa la tilmaamay inuu heshiis hoose oo halis ah uu la galay Uhuru Kenyatta, ka oo ah in bilaa shuruud dib loo fasaxayo qaadkii ka imaanaya dalka Kenya, iyadoo muwaadiniin Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo dalkaasi iyo safarada Nairobi. marka la eego labada dal, xiriirka ka dhaxeeya waxa uu ahaa mid aad u xun marka la eego waqtiyadii la soo dhaafay. waxaase jiray in xukuumadda haatan joogta uu markaa hogaamiyaha uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aad ugu suluugay, isla markaana u dulqaadan waayay ficilo marar qaar ay sameeyeen dowladda Kenya iyo ciidamadeeda. sidoo kale waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya kuwa oo lagu dhibaateeyo halkaasi, isla markaana qataro badan wajaha, laaluush laga qaado, ganacsi marka la eegana ay adag tahay in halkaasi ay ka sameystaan. kadib markii dhacdooyinkaasi ay noqdeen kuwo waaweyn, xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay xiriirka u jartay dalka Kenya, waxaana markaa bilowday xifaaltanka siyaasadeed ee labada dal. labada mas'uul waa Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iminka waxay isku yihiin lid, xitaa marka la isugu yimaado shirarka ma wada hadlaan. waana arinta inta badan dadka Soomaaliyeed ay ku tilmaameen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shakhsi go'aan leh, isla markaana jecel wadankiisa iyo weliba shacbigiisa. si kasta iyo xaal walba marka la eego xiriirka fog ee labada dal iyo shacbigooda waa mid wanaagsan oo aad iyo aad u dheer, waxaana labada dal iyo shacbigooda inta badan ay isku yihiin kuwo isku laab furan, isla markaana ah kuwo aanan isdhibaateynin, istaageera, isjecel. laakiin siyaasiyiinta labada dal waxay hawada isku marinayeen hadallo aad u xun, xanaf leh, isla markaana dhaawacayay qarannimada labada dal. gaar ahaan ficiladaasi waxa ay ka imaanayeen muwaadiniin iyo siyaasiyiin dalka Kenya kuwa oo inta badan nabca ama marka laga hadlayo madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad u dhaliili jiray, isla markaana waxyaabo uusan mudnayn hawada iyo warbaahinta ay u marin jireen. laakiinse iminka waxaa muuqata in ra'iisul wasaare Rooble uu ku fashilmayo guud ahaan siyaasadda, iyo weliba in dalalka qaar la eego waxyaabaha dhexmaray dalkeena hooyo ee Soomaaliya, la eego danta shacbiga. waana arrin muhiim ah oo u baahneed in laga fikiro.
degdega markaa ku jira Rooble waxa uu mar kale dhaawacayaa qarannimada Soomaaliya iyo sidoo kale shakhsi ahaantiisa iyo saameynta siyaasadda uu haatan ku leeyahay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in Rooble uu markaa galayo xadgudubyo aad u weyn. daawade marka hore waxaan ka codsanayaa in aad share gareyso muuqaalkan oo saaxiibadaada aad la wadaagto isla markaana aragtidaada aad ka dhiibato mowduuca maantay. wabillahi tawfiiq.